بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن صاحبيال داوديال دقيستيال مال كستا أدونك وجوكتان وبرنامج تجابة أو نيسو ودنو وبرنامج تجابة أو نيسو ودنو تي في جايو راديو وتي في جارجو راديو صمدون مقالة أصل عاصمة النرويج وأنا وريا عبد الناصر محمود حاج أحمد وجفاء صاحبي هذا مقليسان أما يفيرسانيسان وعن ربا إن سؤال فكر كينا هذيك كديبتان سيدا الله صعتان مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية حسن الشيخ محمود يا ميدو يوروب وعيشيس جوجل إن دات الصومالية ودبا بدن كسومري سيدي وسو غاري لهايين دالك talyaaniga dib loogu celiyo sida alla socotaan waxay soo mareen saxaraha waxay soo mareen Soomaaliya gobolada qaarkood dhibaato ka soo mareen waxay soo mareen sida alla socota Itoobiya Suudaan saxaraha markii dambena waxay soo gaareen badda qaarkoodna ay ku dhinteen saxaraha qaarna ay ku dhinteen badda kadibna gaareen si dhib leh qaarkood laga yaabo in magafo lacag badan oo ku dhiibay si ay u helaan mustaqbal iyo nolol ka duwan noloshii ay ku jireen qaarkoodna qatar nafsadooda u galeen sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud in dhalinyaradaasi dib loogu celinayo fikir noocee ayaa ka qabtaan dhegeystayaal daawadayaal waana soo wici kartaan wixii fikir ay qabtaan meel kasta ay joogtaan waa barnaamijyo tijaabo oo anigoo ah عبد الناصر محمود حاج أحمد وريا عبد الناصر محمود حاج أحمد وجفاء أصل النرويج برنامج تجابة أو وضنا تي في الراديو راديو صمدون أصل النرويج فكر نوعي كغبطة هذه عادات دبعتها ذاتك الصومالي ذا كويس تقربها وقتها ذاتك الصومالي ذا دبعتها الصومالي intaasoo sano sida aan la socono bishii hore waxa ku dhintay ku dhawaad 500 oo qof badda u dhaxaysa Mediterranean-ka Masar iyo badda u dhaxaysa Mediterranean-ka Masar iyo Talyaaniga sida hadda la socotaan warar xali aan helay oo aan la xiriir dad ku nool dalka Masar waxay sheegeen in ku dhawaad 400 oo qof ayadana la yahay oo Soomaali ah إسلاو عبدي واي مقشا صاحب إسلاو عبدي أيا سوها اللي إسلاو عبد إسلاو أيا كومنتي كسو بحيي أو جوغا دالك هولان وحيرو كوا صاحب هذا أفريكا دا إيو ديب ها وعليو كوا يوروب جوغانا إلهي سو قد بيي دريال وي هايستان اوكي وارنتا صاحب ادي ايو ما سنتاي اسلاو عبدي اسلاو او جوغا دالكا نذرلاند اما داتشكا سيدا u taqaanaan ayuu ahaa wuxuu yiri kuwa saaxib yaal wuxuu yiri kuwa Afrika xabsiyada ku jira iyo kuwa Aasiya dhibaatada ku jira waruntiis dhibka ku jira xabsiyada Aasiya ama Carbaha ama Afrika kuwaas dib ha loo celiyo yiri kuwa ku jira yiri Europe ay joogana nolol ha loo sameeyo daryeel waruntiis dad badan sida aan la socono dalka Australia bishan dhexdeed waxa isku gubtay gabar 21 jir ah oo Soomaali ah oo dib ku dhibaataysanaa dalka Norway wiil Soomaali ah ayaa sanadkii 2004 isku dilay sida aan la socono wadanka Holland Dutchka dad badan oo Soomaali ayaa ku dhibaataysan ayagana sidoo kale wadamo badan oo Soomaali ah ayay ku dhibaataysan sida aan la socono waxa jira heshiisyo ay dawladda si in fikir noocay ayaa ka qabtaan saaxiibayaal arintaas islaaw cabdi islaaw uu ka fikirkiisa ayuu ka dhiibtay islaaw cabdi islaaw wuxuu joogaa dalka Holland Netherland saa u taqaanaan ama Holland ama Dutchka fikirkiisa wuxuu ku sheegay dad badan oo Soomaali ah inay ku jiraan xabsiyada dad badan oo Soomaali ah inay ku jiraan xabsiyada Afrika Aasiya ku dhibaataysan dalka Liibiya ahaata ama wadamo kale oo Afrika Tanzania ha noqoto dadkaasi oo u baahan nolol dib u celin
dadkaasoo wax ilaa hadda u qabtay jirin. dad ayaa sanooyin ku jiro, dad ayaa ku xanuunsan xabsiyada liibiya. sidaan la soconay wadamo badan oo afrika ka mid, wadamo badan oo aasiya ka mid, wadamada carabta, sacuudiga sidaas kale, ilaa haddana wax looguma qaban oo toos ah. dadka sida aan la soconno, dad badan oo dalka talyaaniga ku jiro in dib loo celiyo, fikir noocee ayaa ka qabtaa dowladda soomaaliya ay fikirka ay ka dhiibtay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo dowladaha yurub ay ku heshiiyeen? fikir noocee ayaad ka qabtaa saaxiib yaal? fikirkiina soo dhiibta, waa muhiim. meel walba aad joogtaan waan soo dhaweynaynaa fikirkiina. sida aad ula socotaan, ilaa hadda waxaa la leeyahay doon ka soo baxday dalka masar, sida ay wararka sheegayaan. waxaan la xiriirnay dad ku nool dalka masar, magaalada qaahira, caasimada dalka masar. waxay noo sheegeen ilaa hadda la leeyahay doon oo saarnay ilaa 4 boqol. sidee u aragtaa arrintaasi? dadka soomaalidu waxay u baahan yihiin nolol, hoggaan iyo wax walba. sidaan la soconaba, dad badan ayaa ku dhibaataysan wadamada, laakiinse dhibaatadii ay soo mareen maxaa bedel ah oo loo haya? dadka xabsiyada ku jira ee ku dhibaataysan ee wadamada africa, aasiya, ayagana maxaa bedel loo haya? waxaa soo hadashay fikirkiina ayaan soo dhaweynaynaa. fikirkiina waa muhiim. islaaw cabdi islaaw, aad iyo aad ay umahadsan tahay fikirkaaga saliimka. mar walbana waa soo dhaweynaynaa fikirkaaga. soo dhawaaw farxiya samco, malyuun soo dhawaaw, vaiza soo dhawaaw, england soo dhawaaw, princess keen soo dhawaaw, roodo, dhammaan soo dhawaada. wixii fikirkiina ama commenti ah noo reeba. laakiin cabdinaasir oo aan kaa dhex galo, waxaa nala jooga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh, ilaahay hadaayo, dadkii wadankii joogay ayuu wax u qaban waayey. dadkii wadankan yuruba awood uu wax ugu taraayo, uu mataqaanaa ku kafaala qaadayo, xaguu ka keenaya? hadduu wax u tari karo dadka wadanka joogo, dad baahiyaa jiro, dad buul hurdaa jiro oo mataqaanaa haysan hoy, dad banaanada seexdaa jiro, wiilal koola dhuuqyaa jiro, gabdho koola dhuuqyaa jiro. dadkii mudib haween dadka wadanka joogo, dad badan nolosha ka dhacay dib kabacdi dadkan dibadda joogo, hadduu rabaa soo loobta ha dhaho wadankii wataas. dadkii waa isbedeleen, meel walba mataqaanaa burcadkii waa yaraadeen. laakiin dadkii oo mataqaanaa wadankii joogaa ku dhibaataysan, dad yurub joogo, xasinimada uga soo celinayay maxaa waaye? fikraddeeda taas waa aniga. soo dhow farxiya raxma cilmi, muniira mukhtaar soo dhawow. dhammaan soo dhawaada. fikirkiina ayaa saliima. sida cabdiqaadir uu sheegay, wuxuu yidhi dad badan ayaa ku dhibaataysan dalka soomaaliya. dadkaasi ayaa u baahan yidhi in dhaqan celin ama dib u hagaajin lagu sameeyo noloshooda. dadkaasi ayaana u baahan yidhi. waxaa ku jira agoomo, waxaa ku jira sabool, waxaa ku jira indhoolayaal, waxaa ku jira camoolayaal, waxaa ku jira huryaamiin, waxaa ku jira dadaan biil loo soo dirin. dadka biilka loo soo diro hadda hadduu uu mataqaanaa wadankii ku celiyo, dadkan kale oo biilka loo soo dirayo soo ku daberayaa su-aasha wakaas soo ku daberayaa. dhegeystayaal ama daawadayaal na fiirsanaya ama dhegeystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada. ciise cali soo dhawaada. adigana dhammaan soo dhawaada. waa tv-ga rejo, raadiyaha samadoon, oslo, norway. fikirkiina aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa. waxaan soo dhaweynaynaa raxmo, waxaan soo dhaweynaynaa muniira, waxaan soo dhaweynaynaa ciise cali, ciisaan soo dhaweynaynaa farxiyo, dhammaan daawadayaasha iyo dhegeystayaashaba waan soo dhaweynaynaa. waa barnaamijyo tijaabo ah oo inagu tala gashay tv-ga rejo, radio samadoon, oslo, norway iyo dhammaan. mar walbana fikirkiina waa saliim. waa barnaamijyo tijaabo ah oo arrimaha bulshada ku saabsan, arrimaha wixii cusub ee dalka soomaaliya ku cusub, mar walba waan iisoo gudbin doonaa. arrintaana waxaan uga hadlaynaa aniga cabdinaasir maantay waa ka daqananay. sababta uga daqnana waxaa waaye faaisa maxamed ayaa assalaamu calaykum. wacalaykum assalaam. faaisa soo dhawaaw. fikirkaaga saliimka soo dhiibo. farduusa cabdiraxmaan soo dhawaaw. dhammaan dhegeystayaasha iyo daawadayaashaba soo dhawaada. waa tv-ga rejo iyo radio samadoon, oslo, norway. fikirkiina mar walba waan soo dhaweynaynaa. fikir kasta ama oraah kasta oo aad qabtaan, wax walba oo soomaaliya ku saabsan arrimaha bulshada,
waxyaabaha aan iisoo gudbin doona waxaa ka mid ah xaaladaha ay ku nool yihiin dadka qurbo joogta dadka soomaalida xaaladaha kusoo kordha wadanka arrimaha bulshada ha ahaata fanka iyo sugaanta waxyaabo badan arrimo badan ayaan soo gudbin doonaa barnaamijyo oo bilow ah. Faiza وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhow walaale soo dhow. Faiza soo dhow fikirkaaga soo dhiibo. Okay xasan cabdiqaadir muxudiin soo dhow saaxib soo dhow dhammaan soo dhowaada fikirkiinana waan soo dhaweynaynaa meel walba adduunka joogtaan meel walba joogtaan waan soo dhaweynaynaa welcome fikirkiinana waa saliim waxaa ka qabtaan waxaa kaloo nii soo gudbin doonaa barnaamijyo fanka iyo sugaanta taariikhda fanka iyo fanaanka waxaan nii soo gudbin doonaa barnaamijyo sport ah barnaamijyo arrimaha bulshada caafimaadka sharciyada iyo waxyaabo badan oo ku saabsan arrimaha dadka Soomaalida ee soo galootiga xaaladaha ay ku nool yihiin sida la socotaan dad badan Soomaali ah ayaa ku dhibaataysan dalalka Europe Aasiya iyo Mareykanka iyo Canada dadkaasi sida la socotaan gabar 22 jir ah ayaa isku gubtay dalka Australia ayadoo muujinaysa dareenka ay qabto iyo duruufaha ay ku nooleed waxaa jira wiil Soomaali oo dalka Norway isku dilaysan waxaa kaloo jira wiilal badan oo Soomaali ah dad badan oo Soomaali ah ku dhibaataysan sida la socotaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in dadka Soomaalida ay ku nool dalka Talyaaniga ee ku galay dadka Soomaalida ee Talyaaniga galay ee qaxootiga ku ah in dib uu celinayo fikir noocee ayaa ka qabtaa fikirkaaga ayaa mar walba soo dhaweynaynaa mar walbana soo dhawaada fikir noocee ayaa ka qabtaa dadka sida uu sheegay Islaaw Cabdi Islaaw oo jooga dalka Holland wuxuu yiri waxaan fikirkayga ka qabaa in dadka Soomaalida ay ku dhibaataysan Afrika iyo Aasiya xabsiyada ku jira sida xabsiyada Liibiya Tanzania Sacuudiga Yemen iyo wadamo badan oo dhowr ah oo ku dhibaataysan qaar ku xanuunsan qaar ku waashay oo u baahan daryeel inay ka helaan dawladda Soomaaliya iyo dadka wakiilada ka ah dawladda sida safaaradaha ilaa ay haddana aan ka helin wax daryeel ah dadkaasi oo ku dhibaataysan qaar sanooyin ku xiran xabsiyada ilaa haddana aan helin wax daryeel ah wuxuu yiri Cabdi Islaaw dadkaasi ayaa u baahan in wax loo qabto halka dadka kale ay nolol u baahan yihiin noloshoodana la siiyo hore u socdaan adiga fikir noocee ayaa ka qabtaa Naasir oo aan ka dhaxgaloniyo madaxweynaha waxa umaleelaa xoogaa laaluusha la siiyey wala ana hadalkaas ma dhihi karo hadalkaas aniga saxafi ahay hadalkaas ma dhihi karo laakiin waan adiga dad badan fikirkayga waani dad badan ayaa la soo xiriiray waxay ii sheegeen in aad ugu damqadeen soo dhawaajina Jana soo dhaw zaciimka Xaaji wariye Qujufay aha soo dhaw saaxiib zaciimka Xudayfi fikirkaaga soo dhiibo mar walba ku soo dhaweynaynaa fikirkiina aad iyo aad ayaan soo dhaweynaynaa saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan waa TV-ga Rajo iyo Radio Samatoon iyo dhammaan bahda nii soo dhaweynaysa TV-gan waxaan nii soo gudbin doonaa barnaamijyo arrimaha bulshada caafimaadka dhaqaalaha ganacsiga iyo xaaladaha wadanka Norway iyo dadka Soomaalida ee qurbaha ku nool iyo arrimaha fanka iyo sugaanta waxaan wareysan doonaa dad ka mid ah xubnaha dawladda ee deegaanada ee magaalada Oslo waxaan wareysan doonaa dhaqaatiir looyaro dadka ku arrimaha socdaalka waxaan kaloo nii soo gudbin doonaa fanaaniin caan ah oo aan wareysan doono taariikhdooda fanka sugaanta barnaamijyo wax ku ool ah oo dadka bulshada Soomaalida wax u tar leh soo dhawaada mar walba waan soo dhaweynaynaa Faiza Maxamed soo dhawow zaciimka waxa umaleelaa Abdinaasir oo Faiso waa asxaabta waxa umaleelaa fikradeedii ku qoslaysaa ugu taageersantaa umaleelaa Faiza hadal aba qofana soo wacay wicitaanka hadda ma ahan waxa waaye fiiri Saadiya soo dhaw Saadiya abay soo dhaw dhamaan dhageystayaasha iyo daawadayaasha TV-ga Rajo iyo raadiyaha aad iyo aad ayaan soo dhaweynana meel walba adduunka joogtaan waa anigoo ah wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed wariye Qujufaa oo ku nool Oslo Norway mar walbana soo dhawaada ayaan idhahnaa waxaan soo gudbin doonaa barnaamijyo waxtar leh oo arrimahaas aad iyo aad ayaan ugu xumnahay oo dad badan ayaa ka tiiraysan dad badan oo lagu laayahay badda Mediterranean-ka u dhaxeeya Masar iyo Talyaaniga sida aan warar badan aan la xiriirnay okay sida aan la xiriirnay
dad ku nool dalka masar waxay noo sheegeen in dooni 400 oo qof ku dhawaad ilaa ay hadda la laayahay waayada nasiib dar ilaahay ha badbaadiyo aad iyo aad aan ugu walasannahay ilaa hadda la laayahay 18 maalmood ayay badda ku jirtaa siday noo sheegeen xoog ogaal ama dad ku nool oo wadanka masar siday noo sheegeen ay u sheegeen TV-ga aad iyo aad aan waxnahay wixii warar ay ku soo kordha doontaasna waan soo gudbin doonaa wixii warar ah kala arrintan ku saabsan dadka Talyaaniga yimid ee dib loo celinayaan waan soo gudbin doonaa waxaana wareysan doonaa dad mas'uul ka mid ah dawladda ama waxaan isku day doonaa in la xiriirno dad ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda hay'adaha UNHCR ama dadka qaxootiga qaabilsan dawladda Talyaaniga ama wadamo kale ayaan la xiriiri doonaa si aan u ogaano xog inta dheeri ah iyo dawladda mas'uuliyiinteeda waan isku dayn doonaa si aan u ogaano arrintan iyo meesha ay marayso waxaan la xiriiri doonaa dad mas'uuliyiin dad wax ka yaqaan arrinta qaxootiga meel walba aad joogtaan fikirkiina way soo dhaweynaynaa soo dhawaada barnaamijyadan waa barnaamijyo tijaabo ah oo aan wadno islaaw cabdi islaaw aad iyo aad ayaa fikirkaaga usoo dhaweynaynaa islaaw cabdi islaaw wuxuu sheegay in dad badan oo Soomaali ah ay ku dhibaataysiin Afrika iyo Aasiya dadkaasna u baahan yihiin wax loogu qabto adii fikirkee ayaad ka qabtaa wuxuu yiri dadka ku dhibaataysan xabsiyada Afrika Aasiya dib u celiya kuwaas ayaa u baahan kuwa Europe joogana ilaahay ha sugaan yiri daryeel ay haystaan meeshooda ay ilaahay ku sugayaan daryeelkooda ay haystaan adigu fikir nooca ayaa ka qabtaa dhageysta daawade meel walba adduunka joogta waa barnaamijyo tijaabo ah oo anigoo ah wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed qujufaa idiin soo jeedin doono mar walba waan soo dhaweynaa fikirkiina waxaad nagala soo xiriiri kartiin Facebook-ga aalada telefoonada waan qori doonaa Skype-ka iyo dhammaan meelaha aan contactigeena fadlan Sanka TV na subscribe dah Sanka TV na subscribe dah haddana subscribe dah TV video-ga Sanka TV yes YouTube-yada email walba live screen-ka meel walba waan soo gudbin doonaa ama Sanka channel-ka Sanka TV Norway mar walba waan soo dhaweynaynaa see u aragtaan fikirkiina soo dhiibta comment ka bixiya subscribe gareeya see u aragtaan barnaamijkan hordhaca barnaamijyo tijaabo ah waan soo gudbin doonaa sidaas waa isku soo noqon doonaa saaxiibayaal sidaas nabadgelyo iyo fikrad fiican